عقلي مركه هو عربي وعين يقاف اللام وحوي حرق أما الضبط أما السيطة وحاو حدا قفك إنه قدمه أيوك حدا هذه أنا قفك عقلي قبيل صلاتكم موجه ودينكم موجه وحاو الإمام قاسالي عقلي وحكو قرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي قام قرأ عقلي دينتنا ويوضع سلطان هذه عقلي قال لك تغنى دينتي فهم بدل لك قادر مالي هذه دينتا لك تغنى دي عقلي مركب كل كليه عقلنا وحب العظمى مروى إلهامه المهم مركب يريهاي ولا رشا لكن ويسكي إلهامه وكله لحانتا يقبل يقولك يوحيابها ودريما اختركوا سيدا ركتين انتو يرقب تابو سيدا يا المها سهدي وشيك يصير كليو عقلي يسيبوه ونكسيه مستحليس هذه ولكن دريم وايو المها سوا waxaan isku leeyahay khatiib baa joogtay taa waa ka yara mahanayo inta marka dhaafto istiraaxan aqligu waa ka naqli ahaan ama istiraaxana waxa weeye kan uu garto waxyaabaha xaqaayiqa Ali ibn Abi Talib karam Allah wajhu waxa uu yiri al-aqlu hiftu tijaru aqligu waa halka ilaalisa maxaan ku raad tajarrubada ama waxyaabaha la maray oo waxa ilaaliya إن العقل يستفاد من الخبرات السابقة ويحولها خبرتها قفك فائدة أيه وحيسوب الدلان حكمة دا صادقة أنه قفك عقل قوال لقوه السبيل هذا نوع القصي كلام ذي وحان كحرية قفك أغنطي دوك قاطو أيضا عقل قولي قول هذا إدبكم كل لما كإدبينتا أما دقنك مركا الله يسكو قاعدو فانك يدقنك با سيبا يوقبان دخاتيتنا سيبا يوقبتا قولنا منطق أمام بانكر كسبة وقبتها قولنا فلسفة كسبة وقبتها قولنا بس إلى هذا لكن كارسين من نوع حيل بيشيلنا قلت قولنا محن كلها عافمات ولبا علماء إسلام كهاي عافمات ما كل سكوب دارو حيو قبان إنه يهاي عقله أنا وهاي وصلت محن كلها مسكحة ويجرت مسكحة لكن عقله ووظيفته أما الشغلة وقبنا يسمى مسكحة أي لها عقل ولا إذا بكوا حيوان ما هتا إنه شعاع تهاي شعاع سامنور كاسي إنه عقل جاي هاي لكن وحيو قادنا يوم حق الشغلة وبي وقادنا يوم قام هنا تصواتها وحول هذا إنه مقطع أو كم إذا ذكر وذبذا ودقن كان أما السجان تمكن اسمه قاضو وحول هذا وبقرك دونسته الجهل ويكل دوانان الساعة مثل الجاحد وكل حولي هاي وحاول بدل إلهي بحياة وعقل وقفك والسياء صومالي هانو تبصل كهر إنه أنت نادي توكل أو ده دقك إنه الدنيا واحد شفته قبيل بدن أو يهيصل بدن أو أيتريين أبوالله oo ku saabsan taariikh boodheer waa kamid aha ninka la yiraahdo qaasim waa kamid ah filosofki ah adraawi waa kamid ah waxa isaguna si dadban soo qaatay filosofki maxaan ku radaa reer boorame xasan sheekh muumin oo isaguna aqliga wanaagsan intaan uu ka yahay baleego fiirsada oo wad moodayno mar dambe soo qaatay kelmadda aqli laakiin markii hore uu doonayay inuu yiraahdo intaan uu ka yahay baleego fiirsada waayo qaafiyada way kala duwan yihiin laakiin wuu soo amaahaday حوله واي حوله شيء يا حوله عقل ماله لكن إلهام إليه فألهمها فجورها وتقواها إلى بنامه محيدين العربي يقولها عقله حقائق أيوك كارسيا لكن كوكو مفلنا وين ديني هو جامسيا هذه الشيء ما كله يقول ضدك ولا الفلسفة دي وكالله فلسفة عن الإسلام كهاي أرسل الله كمية مركل السويدين أيوه waxay ka bilaabmatay falsafadu de waqtiga ay baranay waqtiga biyaanka la sameeyay wax ogow qofku marka ugu horeysa dhaxanta markuu arko qofka markuu soo dhaco uu qayliya adduunyadu ku jiray iyo caalamkan uu yimi ayuu isweydiinaya waxa yihiin halkaas ka bilaabmata mandaqu ka bilaabma maxaan ku rahaa falsafaduna ay ka bilaabmata laakiin midna waa mid aan diin ku xidhan oo lagu lumo midna waa mid diin ku xidhan oo laga faa'iideysto fahamka عقلنا هو فهم هذا دين اللي فاهمين هذا عقل اللي مش أنا كنت إمام قاسالي وكلام قولها
caqligu waxa ka sareeya wadnaha ama qalbigu waa ruuxi waa waslad marka hore waslada uu yahay kitaabkiisa ku sheegay ilaahu kimiya saada oo waslad laakiin waslada uu yahay xoolaha bad qalbigu ku jira wadnuhu laakiin ka binaadamku waxa ka duwan yahay caqligu iyo xukumaa ruux baa ku jirta ruuxdaas waa nuurkaas wuxuu xukumaa caqligu wuxuu xukumaa dareemayaashuna xukumaan carada iyo maxaa ku rabitaanka haddii qofku carada iyo rabitaanku ay isaga qaataan oo diin xakamaysan waayo uu ku lumaa haddii diin xakamaysan waana uu ku badbaadaa caqligu halkaasuna diintu laba qaybood marka laga dhigo diinta qayb baa caqliga loo soo qaata oo fahamkiisa مثلا marka la eegayo shariicada koow quraanka ilaahay laba axaadiista rasuulka saddex fahankii asxaabada ee ijmaaca isku raaceen marka inta la dhaafo ijmaaca waxa kamid ah مثلا Abu Bakr as-Siddiq markii loo diiday sikadii wuxuu qofka salaad iyo kala sooca iyo sikada waa inuu dagaalamo dadna saxaabadii way la qaadatay saas ijmaac ugu noqday iyo wax la mid ah inta marka la dhaafo waxa ka soo haray waxa weeye waa caqli waana ilaa 8 marxalado qiyaastu waa kamid nabi maxamed sallallahu alayhi isagoo nool ama isagoo nool yahay isagoo ina dhex jooga dadka dhex jooga ayuu weydiiyay macaad bin jabal u diraayay maxaad ku xukumaysaa yaman waxaan ku xukumayaa kitaabka ilaahay mar labaadka maxaad ku xukumaysaa dad ka weydo sunnaha rasuulka haddaad ka weydana diiwaan ijtihaadkaas oo caqligu ka bilaabmaya taas ka bilaabmaya marka uu farabaday maraatib badan buu leeyahay waxa kamid ah qowlka saxaabada waxa kamid ah diintii laga horeeyay wixii sharciyeeyay ee quraanka yaalla in loo diidin waxa kamid ah istixsaan wax la yiraahdo waxa kamid ah masaalixda wax la yiraahdo quraanka de nabigu muu daabicin laakiin saxaabadii ka dambeysay ayaa markay aragtay in dagaal badan la galo dadka kufaada ay dhimanayaan ayay qaateen in la qaato quraanka la qoro marka maslaxad diintuna marka la isku qaado waa maslaxadaas waxa weeye in qofka laga ilaaliyo ama ummadda laga ilaaliyo wixii dhibaya mafsada iyo in wixii maslaxad la doono marka diintu intaas ay ku soo ururaysaa oo shariicadiya waxa kamid ah iyaduna waxa la yiraahdo maxaa ku istixsaan waxa la yiraahdo ayaa kamid ah oo Maalik iyo Abu Hanifa ay qaateen laakiin Shaafici waxba lagu banaysanaya waxa kamid ah iyaduna waxa la yiraahdo daraac oo la yiraahdo waxa lagu ilaaliyaa si aan khaladka loo gelin مثلا عنبka in la beero oo beeraha عنبku bataan waxay keeni kartaa in khamriga laga sameeyo hadii khamriga loo habaysan sameeyaan joogaan kaas aawada diintu waxay tiraahdaa wixii ka iman kara waa in la iska ilaaliyo islaamku waa aqeedadaasi waxay u baahan tahay kitaabka iyo sunnada ayaa loo daba fadhiisanay waxa soo raacay waxa in ijmaaca ummadda iyo qiyaaska caqligu marka saga loo qiyaaso yani door intee leeg buu soo galiyaa wuxuu ka soo galiyaa marka laga reebo kitaabka quraanka ilaahay marka laga reebo xadiiska rasuulka ijmaaca marka laga reebo ijmaaca laftiisa waa faham caqliga saxaabada fahamkiya inta kale oo dhan wixii qalabay kale la isticmaal ilaa todoba ay u tirinay caqliga ayaa soo galaya oo fahamka diinta waxa kale soo galaya cilmiga usuulka iyo cilmiga farbadan oo kale mandiqa soo galaya wax badan soo galaya ereyga mandaq adinku hadalaysay saameyn noocee ah ama si kale ereyga mandiq waa maxay ama kaalin noocee ah ayuu ku jira aqoonta islaamka waayahay waxaan jecelahay inaan taa mid ku darsado taana ka jawaabo horta marka hore saameynta uu ku leeyahay islaamka waxa weeye mandiq oo waxa lagu dhasho qofku si uu doonayo inuu ogaado jawiga markuu dhashayba waxa isbedelay inuu ogaado ayuun baa la koraa waa laga yaabaa mar dambe oo la diiwaan galiyay waqtiga Socraate oo kale iyo Aflaatoon iyo wax nooc la mid ah in la yiraahdo laakiin waqtiga la dhashay binaadamku dhashay bay la bilaabantay oo qolo waliba wax bay ku leedahay fahanka mantiqu maangalku marka Soomaaliya eegno waa maangal waxa uu diinta kaga jira waxa uu nidaamiyaa habka doonayso ayuu maangalku nidaamiyaa oo u sameeyaa qorshe u sameeyaa oo isku nidaamiyaa waa ka weyn imana mid kale oo ku darsanaya xaq dhaqankeena
waxaa ka soo galaa matalan rag waa maxaan ku dhahaa waxaa jirtay 3 hablood oo maxaan ku dhahdaa waxay xawawareen riyo hadii jeer nolosheenu dhaqanka xoolo dhaqanka ku xiran tahay waana takaliya nuku dee amaananahay ama in kulanay taariikhda hadii naga baabadaan fiish ka nahay habluhu waxay waqti nolosha kamid ah ayaa waxa la kala kaxeeyaa markii abaar soo dhawaato ama daaq soo yaraado waxa la kala kaxeeyaa idaha iyo riyaha idahana meeshii maxaan ku dhahaa cawsle baa la geeyaa riyahana waxa la geeyaa meeshii salool deedna habliyo riyi kaxeeyay ayaa qola u timi waxay weydiiyeen geel hala lumay inay arkeen inaba waxay ku tiri miyay ku jirtay hal dhitinaysa ama heed dhitinaysa miyay ku jirtay neef dib go'ay miyay ku jiray neef awaran haaba ilaahay waxay tii halka mar oo geel wad ka horeeya dabeedna way soo heleen markay soo heleen bay la yaabeen siday u garteen hablihii bay yimaadeen waxay dhahaan miyaad aragtay geelan aad noo sheegtay ma bay tii haddaan maxaad miyaa lagu waxyooday ma haddaad sad karatay waxay tii raadkoodaan arko dadna saasaan kula gartay nimankii markiiba way fadhiisteen damac baa galay inay guursadaan mid ka mid ah ay tartamaan ayaa galay hablihii baa sooriyeeyey dabeedna inantii baa u keentay ama tii ka weynaad ama iyadaan noqotay waxay tidhi waa habloo rag la'aan baa leh yani inuu hilibka soo qaadno dee rag baan joogi waa riyo ida la'aan baa leh waa sabayoo biyo la'aan baa leh inantaasi waxa ay ina dul dhigaysaa aynu ka turjumaynaa mangalka sida ay u taqaano dhaqan ahaan sida u taqaano maxaan ku dhahaa maankayga gaddae hashu maankayga gaddae ma masaar bay daaqday waxyaabo badan oo imka inaan ka gayoonaynin baa ku jiro dhaqaano leenahay marka mangalku waa wuxuu ka mid yahay hantideenna allah ilaahay wata la yiraahdo neefka cawaran xaq uu cawaran yahay lagama maro caynka ugu dili rabaa way si guud falaasifada muslimiintu ma cilmiga aqliga ka yiraahdeen ama halkii ka joogaan falsafada islaamku haahi bismillaah falsafada islaamku meel weyn bay ka joogtaa diinta islaamka si loo tuujiyo oo dadka xilligaa jooga maxaan ku dhahdaa garaadkooda iyo la isugu xidho iyo shareecadii ayay falsafadu ka caawisaa marka rag badan oo falaasifaadka islaama uu ka mid yahay imaam al-Ghazali uu ka mid yahay Farabi uu ka mid yahay Razi iyo rag fara badan oo kale hadii jeer ay fiican tahay dhalinyaradu inay ku horeyso intaan ay falsafad kale eegin inay akhrido falsafada culimada islaamka ugu dambeyn culimada islaamku hadda uma badna inay gaadhaan heer ah ijtihaad marka aqoontii baa yaraatay mise ijtihaadkii badankiisa waa laga maarmay maadaama aqli ku dhisay oo ay su'aalo badan ka jawaabaan yaani allah ilaahay su'aasha wadanaysa culimadu waxay moodeen su'aalaha qaar ka baqayaan falsafada ka midka ah waxyaabo badan baa keeni kara waxa keeni kara bariyahan dambe aynu midna suuqa sano ugu dambeeyay aqoonteena diintu meel bay u badnayd falsafadan hadii jeer waxa ka jawaabi kara qof cilmiye badan oo diinta qaatay ayaa ka jawaabi kara waxa ka jawaabi kara qof مثلا طبعا كفانا دين تلاقي تصورات منطقة فلسفة علم اللغة فقه أصول فتوى محاكرة وحيبها صنع قاطي يبقى كجواب كلام وحكى جواب كلام قف عصري ها وحبرتي وإلا دكتورة قاعدة ودراسة كديار كلام إن قال لك اللي تنضم به كتبتي الأخيرة ويراتي نوع على اللي جانا أنا ويراتي مثلا qofkii falsafada soo bartay ama edebka soo bartay ama usul fiqiga soo bartay ama mantaqa soo bartay jawaabaha wuu bixin karayaa laakiin dee qof caqiido in go'an oo had iyo jeer meelaha qaar ku kooban matalan dee dalkan suudiga oo kale ah had iyo jeer oo haddii laga soo marka laga soo qaato had iyo jeer caqiidadii waxbay ku koobayaan
waxaa kaloo keentay islaamka dhexdiisa inay isu adeegsadaan mushrik bidco kufri iyo khurafaad iyo waxyaabaha caynkaasoo hubkii u badan ay soo isticmaalaan dadna iyagii ba isku mashquulay marka cilmi badan baa meeshii ka baxay laakiin dunida jaamacadaha badan leh ee daraasaadka badan iyo maaxiidda badan leh way u diyaarsan yihiin inay su'aalaha ka jawaabaan waxaana ka soo baxa dad fara badan matalan iminka kolley wax badan waanan ahayn waa lagu ammaanay laakiin mid yar baan sheeganayaa oo aniga takhasuskayga waa usuul fiqi baan ku qaatay doctoraada haddii ay fara bataan oo sidaa ay u fara bataan oo doctoraa fara badan la helo ama cilmigan taqliidiga maktabo waaweyn la helo kutub badan la akhriyo su'aalaha si wanaagsan baa looga jawaabaya waxaa kaloo iyaduna meesha ka timid dhalinyarada lafteeda soo kacaysa dhaqankii oo qoomay iyo diintii fahankeedii oo qoomay iyo falsafadihii shisheeyaha oo kulmay ayay su'aalo badan isweydiinayaan marka waxaan ku odhan lahaa dhalinyarada diintu way ka jawaabtay laakiin innagu baan diyaar ugu ahayn oo isu diyaarino jaamacadeenna u diyaarinay waxyaabaha ta kaleeto dee gaalo fara badan gaalo inala joogto oo iyaduna la caabihi karaa ma jirto berigii hore matalan garaaga waqti ingiriisku yimi ee diinta kale way iskuullada waa la diiday markii dambe dunida islaamka la tegay waxaa la arkay ashar oo kale in la dhigto dabeedna waxaa la yidhi sax aynu samayno ubadkeena inaynu marka hore sii layno malcaamadda lagu bari jiray diinta dhaqanka iyo edabkaba dabeedna iyagoo diyaarsan oo aan waxba bedelayn baa iskuulkii ay geli jireen marka innaga tii hoos bay u dhacday miidhiyihii iyo iyadoon laga diyaar garoobin ayaa kulmay markaas siyaabahaasaa keenay laakiin waxaan leeyahay dhalinyarada mid baan uga digayaa falsafadda iyo mantiqa weliba falsafaddu waxay isku tahay haddii aan diinta aad u aqoon haddaana tasawuraadka iyo tasdiiqaadka iyo mantiqa islaamka aad u aqoon halis bay u tahay inaad ku lunto arrimaha waayo niman badan falsafada wax isweydiinayay oo aan diin haysanin waxa ay ku lumeentaa iminka matala aflaadoon oo kale ninka la yidhaho suqraad oo kale ama qoladan griiki fikraddan waxaa ku dhalisay inay wadaadada ay la doodaan oo ay doodda kaga adkaadaan ayaa ku dhalisay deedna tii unbaa socotay deedna dadkii waxay u qaybsaneen waxay yidhahaan waxba ma aaminsaniba iyo qaar yidhaha ilahay baan aaminsanay iyo qaar yidhaha waxba ma aaminsanay marka horta haddaad sideeda u qaadato taa halkaas bay kula tegaysaa laakiin waa inaad dayaadaada eegtaa dhaqankaada eegtaa diintaada eegtaa ka dheregtaa cilmigaysaa dabeedna markaa eegtaa taasaad kaga badbaadaysaa aad iyo aad u mahadsantahay sheekhana allah ku sharfo